بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في العقيدة، waxaan mawduuca walaalkay tilmaamay ayaan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala wixii alla inaga garadsiiyo. ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dunida tan in laynoo keenay in layna itixaamo. insaankuna noloshiisu nooc kastoo ay tahayba, walaqad khalaqna alinsaana fii kabad, beer xanuun baan ku dhex abuuray baa la yidhi subxaana wa tacaala. waxaa laynoo tilmaamayaa insaanku mar kastaba horta inuu kaadixiyey nolosha tan in loogu talagalay in lagu daalo. yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqii, war waa daalaysaan baa la yidhi subxaana wa tacaala, xagga alle u daala. casrigan aynu joogno innaguna wuxuu sii noqday cusuurtii fitanka badnaa ama dhibtu ay tiro badan tahay. ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay maadaama aynu mu'miniin nahay in layna itixaami doono. imtixaanka qofka mu'minkaa laga qaadayaana jawaabtuu bixiyana inay tahay waxa aakhiro wax lagu siinayo. sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin. alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy dadku ma waxay u malaynayaan inta ay yidhaahdaan aamanna inaanu sidaa ku dayn doonno oo aan la itixaami doonin. ilaahay wuxuu tilmaamayaa in la fitnayn doono. fatana, kelimatu lfitna, waxaa asalkeeda la tilmaamaa inay tahay marka la dhalaalanayo dahabkee la kala shiilayo, dahabka iyo khashinka la socdee kale si loo kala saaro waa la dhalaaliyaa, dabeetana dabkaasaa kala saara intiisa fiican iyo intiisa xun. waxaa alla inoo tilmaamayaa in dadka mu'miniintaa imtixaanaad ay ku iman doonaan. imtixaankaasi inuu noqon doono ku basharka lagu kala dhalaalinayo oo lagu kala saarayo. ilaahay markaa wuxuu leeyay falayaclamana allahu aladiina sadaquu. ilaahay subxaana wa tacaala waa muujin doonaa oo waa si cad baa alla u soo saari doonaa kuwa runta sheegaya ee cahdiga ilaahay la galeen iyo laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah ka run sheegaya, iyo kuwa beenta ah baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala iyo beenta sheegaya. waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa basharka inay ka mid yihiin qaar haddii uu nimcada helana ilaahay caabuda, haddii laysitixaamana yidhaahdo dabaday bannaanka ka baxa waxoo dhan. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wa min annaasi man yaquulu aamanna, waxaa alla leeyay wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllah faidaa uudiya fi llahi jacala fitnata annaasi kacadaab illah. dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kule aamanna biاllaah, laakiin haddii loo itixaamo buu ilaahay leeyay subxaana wa tacaala, ilaahay dartii haddii loo itixaamo oo dhibi qabsato wuxuu ka dhigayaa fitnada iyo imtixaankan dadka sida ilaahay cadaabkiisa looga boqoo kale. idan waa laabmaya namuudajka kan ama kooxda tan halaca iyo warwarku uu haysto
waxa ilaahay qur-aanku tilmaamaya wa min annaasi man yacbudu allaha calaa xarf fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitna inqalaba calaa wajhihi khasira addunya waalaakhira dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kuwa ilaahay dacal ka caabudaya oo haddii wanaagga la helana maca naasa oo khayrkaasi wadaya haddii dhib iyo imtixaanu yimaadiyo mashkiladina dib u laabmaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan imtixaanaadku way imanayaan mar kastaba dunida imtixaanku waa imanayaan waxaana alla imtixaamaa dadka kuwa uguba jeclaa ambiyadii iyo rusushii ayaa imtixaanaadka ugu waaweyne ku dhacaa imtixaanka danta laga leeyana waxa weeyaan in la kala saaro alsaadiqiina waalkaadibiin alsaadiqiin fii iimaanihim kuwa iimaankooda ku run sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya in la kala saaro idan dadku imtixaan bay ku jiraan fitankaas iyo imtixaankaasi fitan duqaad iyo jabaabira ka yimaada niman kibray oo qooqay oo dadka dhiba oo mashaakil u geysta fitan ka yimaada shahwaati nafs iyo shubahaat iyo wixii la nooca fitanku way tiro badan yihiin insaanku inta badan hadduu dhergo oo uu baahi beelo oo uu xoog isku arko oo uu arko dadka inta kale inay ka liitaan oo ka jilicsan yihiin xaqa wuu ilaabaa ilahay baa qur-aanka wuxuu leeyay kalaa ina alinsaana layadqى an ra'aahu اstaghnaa ina ilaa rabbika rujca ara'ayta aladii yanhaa cabda ida salla ara'ayta in kana cala اlhudaa aw amara bالtaqwa alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala basharku hadduu deeqtoomo kaaftoomo waa qooqaa waa kibraabaa ilahay leeyay subxaana wa tacaala kibirkaasi wuxuu gaadhsiiyaa mid tukanaya inuu yidhaha war maxaad salaadda u tukanaysaa inay salaadu dembi noqoto qof lagu qabsado ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u tilmaamaya isagoo qofka salaada tukaday aanu wax kala samayn meeshiisii ugu fiicnayd umu dhulka dhigay khalaas cidna waxuma geysanin haddana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala inay salaadu dembiba u arki doonaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku tilmaamaya mu'miniintu hadday daciifaan kayfa wan yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma hadday idinka xoog bataan maxaa dhici doona baa ilaahay leeyay ballan iyo cahdi toona idiin inalin maayaan ilaahay baa wuxuu leeyay laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma mu'minka xaggiisa ballanna ilaalin maayaan qaraabo iyo tollimana ilaalin maayaan yacnii xeer la dhigtay oo horoo basharka ka dhaxeeyey iyo heshiisyo yaallay ma ixtiraamayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaahay leeyahay sokeeyanimo iyo qaraabanimo iyo bini aadamnimo iyo mid kalena kuu eegi maayaan idan markay tani timaaddo insaanku uu xadka kan gaadho wuxuu gaadhaa xad uu aada u qooqo basharka kalena uu ku dhib mutaan fitnadaas iyo imtixaankaas waa imtixaan bini aadamku uu soo maray ma aha mid taariikhda ku cusub bale markay saxaabadii nebiga mashaakilkan ay qabsaday ilaahay subxaana wa tacaala qur'aan buu ugu tilmaamay mas'aladatan waxa ilaahay uu ka warramayaa waxay maanta u yaqaaneen alfikra asaadiya alfikra asaadiya fikra saadiga waxay ku sheegaan waxay dhahdaan waa ideologiga ah qofka bini aadamka ah inaanu qofka kale u ciqaabin inuu dembi galay oo qura ee mararka qaarkood inuu u ciqaabo bay yidhaahdaan inuu ku raaxaysto tacdiibulbashar inay noqoto litafakuh wax lagu raaxaysto qof la cadaabayo laakiin ay jiraan dad daawanaya oo mujtamac isugu soo urura in la daawado dad in la cadaabo taariikhda bini aadamka hore u soo martay maaha mid bilowa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qutila asxaabu اlkhduud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحالا نعذلي أما إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سلقفوقي كوي قدتك تشيح ديبا إلهي سبحانه وتعالى كوي قدتك سميي قد كان محال قبني قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود ضب الشدين وكي حديثك النبي صلوات الله وسلامه عليه تلمامي حديثك غلامك
wuxuu nabigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh boqorradii ka horreeyey muslimiinta boqor ka midi inuu lahaa nin wadaada oo kaahina oo u faaliya faalihiisii uu gaboobay markii dambe uu ku yidhi faaliyihii war inan yaroo aqoon-yahana ii keeno aan faalka kuu baro oo inaan dhimanayaabay u muuqata inan yar la keenay inankii yaraa uu faalka la bari jiray dabeetana waddada uu sii mara unbuu nin wadaadoo raahibo ka helay kiina waxoogaa buu ka dhegaystay kadib ilaahay subxaana wa tacaala raahibka wixii uu u sheegay baa alla ku anfacay maalintii dambea daabadi istaagtay waddadii dadku uu marayey wiilkii yaraa dhagaxintuu qaatay ayuu yidhi maantana arrinkii wadaadka iyo raahibka iyo sixiroolaa kala saaraya dabeetana ilaahay magaciisa intuu u qabsaday buu ku tuuray isagoo le ilaahay hadduu arrinka raahibku xaq yahay ninkaasi bahalkaasi dadka dhibay dhagaxa kan ku dil dhagax buu ku dilay xadiidku waa xadiidka dheer ee sheegayey boqor nin agtiisa fadhiyay inuu indhabeelay yani maxalu istishaadku maan xadiidka ka tilmaami doonaa nin agtiisa joogay inuu indhabeelay dabeetana uu maqlay wiil yaroo dadka u duceeyo oo ilaahay ku caafiyaa jira soo raadceeyey wiilkiiyo u yimi markuu u yimi ayuu wuxuu ku yidhi hadiyadan badanna waan kuu sidaa waxaanan rabaa inaad caafimaad siiso wiilkii wuxuu ku yidhi hadiyadaadana hayso aniguna wax ma caafimaadiya ilaahay baa wax caafimaadiya haddaad doonayso ilaahay rumee anna waan kuu barya alle subxaana wa tacaala alla ha ku caafiye ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkiina alla uu bariyey dabeetana indhihii baa u dilaacay waxbuu arkay wuxuu ku noqday xaashiyadii de boqorku ahaa ee boqorka agtiisii markuu yimi waxau yidhi war indha ayaa kuu saaray oo adigaan wax arkaynini wuxuu yidhi rabbigay awalaka rabbun hayri buu yidhi oo ma midaan aniga ahaynoo rabbi aad rubaysantay baa jira caqliga bini aadamku markuu kibirku ka bato insaanka caqliga caadiga uu ka lumaa markuu caqliga caadiga lumana waxaa soo baxa qawaaniin afkaar aragtiyo aan xataa fitrada caadiga insaanka waafaqsanayn sida awgeed buu wuxuu ku leeyahay ninkan isagoo og inaanu isba rabbi u ahayn ayuu haddana wuxuu leeyahay walaka rabbun hayri ma midaan aniga ahaynoo rabbiya baad leedahay wuxuu yidhi aniga rabbiga iyo adiga rabbigaaba waa alle subxaana wa tacaala baa inoo wada rabbiya waa la toorjargareeyey ninkii ciddii waxaan kugu tidhi keen wiilkii baa la keenay waa la toorjargareeyey ciddii keen wadaadkii raahibkaha baa la keenay wixiiba waa la toorjargareeyey waxaa la yidhi wadaadkii ma ka noqonaysaa diintan aad haysato may buu ku yidhi madaxaa mishaar laga saaray labaa loo kala gooyey qof nooloo la mishaarinayo qiyaas ilaa iyo intay naftu ka baxayso waxaa la keenay ninkii indhoolaha ahaa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi waa la mishaariyo labaa loo kala gooyey wiilkii yaraa waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi yacni duqaadu dadka qooqa waxaanay weli fahmin caqiidadu waxay tahy caqaa'iddu waa shay qalbiga gala xoogguna ma baabi'iyo qofka bini aadamkaa jidhkiisa waad tumi kartaa waad dili kartaa waad garaaci kartaa laakiin qalbigiisa ma hanatid waxa gelaya caqaa'iddu waa wax qalbiga gala saa daraaddeed qofka haddii la jorgareeyo haddii la dilaba waana la dili karaa waana la toorjargarayn karaa laakiin qalbigiisa lama bedelo wuxuu ku yidhi ma ka noqonaysaa may buu yidhi qoluu ku daray waxaa la yidhi buurta geeyo ka soo tuura buurtii markii la geeyey ilaahay buu baryey wuxuu yidhi ilaahu kuwa sharkooda iga kaafi buurtii waa gelgelatay intii kale ka daadatay isna wuu soo noqday isagoo soconaya war miyaad wixii ka noqon kama noqon mucjisaadka iyo waxaan dhacaya dadku markay kibraan ma arkaan wax kale unbay ku sababeeyaan uma muuqanin ninkan ciidankii dhammaaya lagu daray inaan la halaago isagu uu soo noqday laakiin waxaa u muuqato inuu isaga ka takhalluso war doon saara buu yidhi doon baa la saaray badda kusoo rida buu yidhi baddii baa la geeyey ilaahay buu baryey ilaahu kuwan iga kaafi sharkooda buu yidhi waa qallibantay kuwii baa dhintay isagiina waa ka soo badbaaday wiilkii yaraa waa kii akhiiran la weydiiyey yidhi war ma rabtaa inaad idisho sidan aad ku waddo kuma dhimanaye farsamaan kuu sheegaya kale aniga kanaanadayda tan ama jucbadana wax ku sito kala bax warankayga leebabka bismi illaah rabbi lghulaam dheh magaca alle iyo rabbiga ghulaamka ayaan kuu cuskaday dheh markaas buu mudayaa buu yihi bahalka kane laakiin dadkao dhan isugu yeedho caynkaa dheh
wiilkani wuxuu rabay inuu isagu dhinto ilaahay dartii uu dhinto laakiin dadku iimaan inuu galo waa la isugu yeedhay sidii baa la sameeyey waxa dhacay markaa wiilkii halkiiba bahalkii kaga dhacay uu dhintay dadkii markay arkeen wiilkii inuu si kale ku dhiman waayey sida tan mooyaane waxay yidhahdeen aamanaa birabbi lghulaam rabbiga wiilkan baanu anana rumaynay bay yidhaahdeen godad u qoda buu yidhi marka godad baa loo qoday godadka markii loo qoday ee dadka lagu gurayey muu odhan inuun dadka inta godad u qodaan laaya laakiin waxaa la yidhi dadka godad u qoda oo dab ku shida oo ha lagu gubo ciddii ka noqon weyda oo weliba audience ha yeeshaanoo ha la daawado waayo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya id hum calayha qucuud inay dileenoo qura lama tilmaamin fikra saadiya buu qur-aanku tilmaamaya dadkani may ahayn dad wax laynayay oo qura boqorkani wixii kasoo horjeedo qura ma dilin ee wuxuu yihi toorjar gareeya toorjarkana ha la sawiro dee sawir kale waagaa ma jirin wax lagu sawiriyo kamarad lagu qaado iyo wax kale ma jirin sawirka qura la samayn karaya waxa in audience loo sameeyo in dad daawado la keeno oo daawado boqorkii iyo wixiiba waa daawadeen ayaa ilaahay leeyay markay gubayeen dadka kale waxaan u soconnaa waxa weeyaan almuslim amaama alfitani waalimtixaanaat maa mawqifu xagguu istaagayaa qofka muslimka ah marka dhibta tan iyo imtixaanaadkani qabsadaan dadkaasi muslimiinta qur-aanku wuxuu inoo sawirayaa inay ku sabreen dhan kale waxaa alla inoo sawirayaa subxaana wa tacaala in uu isna arkaya ilaahay waayo dadku waxay isweydiin karaan war markan mu'miniinta sida loo galayo sidii yar inta la tumo haddana xadhigga lagu jiidayo waa nooc min torturki waa fikra saadiya qof inta la tumo haddana la sawirayo waa fikra saadiya kullu dalik waa qof bini aadam oo la torjar garaynayo la tumayo lana rabo in lagu taladudo oo la daawado la macaansado how he is dying sida uu dhimanayo ama sida uu xanuunsanayo ama sida uu cabanayo in la arko bale in lagu taladudo la macaansado ilaahay xaqu ku maqayay subxaanahu wa tacaala miyaanay mu'miniin hayn ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud ilaahayna waa arkayay wixii mu'minka lagu samaynayay baa la yidhi subxaana wa tacaala licajalati axad alla uma degdego ilaahay maalin buu ballan qaaday oo abaalmarka bixinayo tan waa isku kiin itixaamayaa baa ilahay yidhi waxaa alla subxaana wa tacaala ku tilmaamayaa dunidan aad joogtaan waa la isku kiin itixaamaya oo waxaa la isugu kiin itixaamaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun baa ilahay yidhi wajacalnaa bacdakum libacdin fitna kooxba kooxdiin baan bal ku itixaamayaa baa ilaahay yidhi waa isku kiina eegayaa kuwiina mu'miniintaa waxaan eegayaa baa ilaahay yidhi atasbiruun marka laydin itixaamo bal inaad sabirtaan walidaalika iyadoo mu'minka la gubayay oo god lagu gurayay oo dab loo shitay ayaa ilaahayna wuxuu qur-aanku ku tilmaamayaa wallahu waxa ay samaynayaan ilaahayna shahiidi id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxa ay mu'miniinta ku samaynayaan way u soo xaadireenoo way daawanayeen ilaahayna subxaana wa tacaala suuradda kuma sheegin wax ciqaabaya wax baloo lagu soo dejiyey dee wax walbana waa arkaya laakiin wuxuunbuu alla sifeeyey iyagu noocay ahaayeen oo ah inay dad dab ku guraya ahaayeen inay meesha fadhiyeen wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud waxay mu'miniinta ku samaynayeenna weliba ay daawanayeen oo aanay ahayn yacni dad gaarun waxay sameeyeen aanay ogeyne iyaga laftooduna ay daawanayeen ilaahayna waa arkaya subxaana wa tacaala bale qur-aanku waxaabuu tilmaamaya in jaanis toobad kalena loo sii furay ayaa alla subxaana wa tacaala tilmaamaya in kuwa fitnada ku sameeyey mu'miniinta uma lam yatuubuu baa ilahay yidhi yani kaana waxaa alla sii tilmaamaya weliba inay jaanis kale leeyihin xadiidkii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu sheegayay dadka sidii dabka loogu gurayey yaa lagu gurayaa dumar caruur nin weyn nin yar all classes mujtamac oo dhan looma kala aaba yeelaynin dhammaantood waa la gubayey dhammaantood waa la tumayey ayaa islaaniisa soo taagtay ilmo yar sidataa taqaacus yaro samayso dabkii iska yaro giijisay
إلهي كي رايا يسدتي بك هدلي سبحانه وتعالى يوحي يا أمة اصبري فإنك على الحق هوي صبر بويد حق بات كتاغنتي سؤال اسويدين تلا marka waxay tahay mowqifka mu'minka amaama al-imtixaanaat waa maxay mowqifka mu'minka amaama al-imtixaanaat waa weedhatan ilaahay wiilka yar ka hadalsiiyay ah ya umma isbiri hooyoy sabir fa innaki ala al-haq xuleeya ku sabir dabka gal halgu gubo laakiin xaq baad haysataa ee xaq uu ka lumay maxaa dadka loo gubaa ama loo dhibaa ama waxaan loogu samaynayaa yani waxa laga rabaa waxyaaba qaarkood aydan inaad isticjaal samayso degdegto waxaan loo fadhiyay inaad samayso lagu sii barnaysto ama inaad tanaasusho wixii aad haysatay aad ka tagtid ama in lagu quusiyo qunut kugu dhaco oo aad tiraahdo waxba de aakhiradeena balaaneegna wixii alla ka dhigtay lagu kala tagi quusato istiraado filimkaanba kuma jirto wax la qabto hadhoo binaadam sameeyaa ma jiro waha hiya aafaat thalatha fi tariiq tariiqa mabaadi'da iyo diimaha saddexda aafooda ku dhaca waa kuwa kan inuu qofku degdego oo waxaan loo fadhiyin inuu la yimaado iyo inuu maxay inuu tanaasulo oo uu thabaat la iman waayo uu sugnaan waayo iyo inuu quusto oo qunuud iyo yaasi ku dhaco amalkiisa islaamiga iyo diintiisa wixii wadayba oo fara ka qaado wiilkan yari hooyadii wuxuu ku leeyahay ilaahay ka dhawaajiyay dharabta lagu sida hooyoy isbiri fa innaki ala alhaq sabir haq baad ku sugantahay alla subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamaya oo in badan quraanku inooga waramaya anbiya la ciqaabay oo la cadaabay oo dib loo geystay oo nafta la isugu keenay أنبياء لله بقرآن كشيء والنبي مع ذلك ولا لا كوال جبيبة قرآن كتلمامية وحاصرنا نسقوا إلى هاي شيء يا الله سبحانه وتعالى هدنا النبي جوحه كله صبر بل يسقوا الصبر أو حيودي بكل عين بإلهي وحلي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق الله سبحانه وتعالى مركي للربي النبي إن لا يدعى الصبر مركه هره مسألة كلا الله شرحي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا واحد حصوص تابع إلهي يدودك وشيكتا مركه كوا قالوا بي إلهي سبحانه وتعالى النار تنتو دولك أنا ورندونا ورتني حق مطي وينك يدفيري تشري آخره ما شرته ناري ما شرته عدالة وحا وينك لهاي أليس هذا بالحق رب ما تهي إلهي وحلي ما لنت مرن مجري أنت والله كحق في سيام بيردنا قالوا بلى وربنا أذان وكقول دارنا الله والنار توارب إلهي وحلي مركزنا نوحنا ردنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عذاب كالدمية وحاو قالوا بيدين دراديد بسبب كفركم دمية عذابك محل لي عذاب كالدمية إلهي وحط المامية أصلاً مال وحكو أرجوستين وليه مال وضدك كو حسابي يني شرته دنيا تنين يتهي دار ضدك الله يتحامى يلا اسكو يتحامى قفك مؤمن كايك قال كلا اسكو يتحامى لكن وحلا قرب ويا أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ما صبر يسمى لله سبحانه وتعالى markii laga waramay aakhira iyo gaalo waxa lagu sameeyo aayada ku xigta ilaahay markaa wuxuu yiri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum aayadii hore markii ilaahay naarta ka waramay iyo dagaalada saal loogu soo bandhigi doonaba ilaahay wuxuu hadana nabiga ku leeyay fasbir kama sabara ulul azm sabir ba Allah yiri subhanahu wa ta'ala وواحد أصبر تاسيدي أولو العزم من الرسل أي صبره أولو العزم من الرسل قرآن كو حقق والرمي نبي نوح ودك تبلا غفر يستي ولا مغلي وايي oo haddana 950 sanadood dacwo wada oo ilaahay leeyahay wama aamana ma'ahu illa qaliil haddana aan joojin bal aba ilaahay ka waramay nabi nuux oo bikulli al-asalib isticmaalay
inii dacawtu qawmii layla wanahaara isagoo siran wajahran wacalaaniyatan laylan wanahaaran marka xagga zamanka laga eego leyl iyo nahaarba waan waday buu leeyahy marka xagga usluubka iyo weyga iyo dariiqada wax loo sheega laga eego siran wajahran wacalan baan u waday buu leeyahy qofka bini aadamkii wuxuu u adeegsan lahaa hadday time factorka tahayna habeen iyo maalinba shaqadaa waan waday buu leeyahy hadday tahay asaaliibta iyo dadka saa loola hadliya saa wax loogu yeedhana kor iyo hoos iyo nooc kastoo bashar wax loogu sheego waan waday baa ilaahay leeyahy dabeetana ilaahay nebi maxamed wuxuu ku leeyahy fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul ay icmal shaqee baa la leeyahy say iyaba u shaqeeyeen sabir abulambiyaa baa ka mid ah oo intaasoo meelood ka hijrooday ciraaq ka tego falastiin ka tego maka tego meel walba dacwo waday xad la soo gaadhsiiyey in dab lagu rido inta lasoo qabto dab loo shido loo xidhxidho in dab lagu rido waxaa ka mid ah nebiyullaahi muuse oo ogteen isaga iyo qoomkiisii wixii kala qabsaday nebi muuse oo aan askar la siin oo ciidan la siin oo lacag la siin haddana ninkii dunida ugu kibir badnaa baa la yidhi qaba adigu iyo isaga u tago wuxuu soo sheeg ilaa waa ka cabsanayaa buu waa soo cabsaday waa bashar waxaa la yidhi bal horta gacanta waxaad ku sidaa waa maxay wamaa tilka biyamiinika yaa muusa bal iska hubi baa la yidhi gacanta kanaad ku haysataa waa maxay ilaah waa u shaydii buu yidhi maxaad ku qabsataa wuxuu yidhi xoolahan ku raacdaa waliya maarib kalena waanu leeya dana kale markii la hubiyey waxaanu hayay wuxuu ahaa ayaa ilahay yidhi iska sii daa haddaba dhulka ku tufo dhulka markay ku dhacday faidaa hiya xayatun tascaa baa ilahay yidhi dabeetana waxaa la yidhi khudha walaa takhaf hadday abeesada soo ordaysa daanka qaba baa ilaahay yidhi oo hana cabsoonin ul inay ahayd markii hore waa waxa la yidhi hubi wuu arkay tuur baa la yidhi waa iska tuuray markuu tuurayna ilaahay wuxuu yidhi qabo oo walaa takhaf ha cabsan maxaa la rabay nebi muuse in cabsida basharkaba laga saariyo makhluuqaad inuu ka cabsado waayo xaggee loo dirayaa nin le ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin hayri nin sidaale baa ilaahay u dirayaa muxuu haystaa muuse cid igu dar buu yidhi walaalkaana kaxaysaa la yidhi waa laba nin waan ciidan wadan xoola wadan askar wadan waxba haysanin ninka loo tegayaana waa nin kibray oo qooqay oo caynkana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala zaad maxaa looga dhigay walaa taniya fii dikrii baa ilahay yidhi aniga xuskayguun ha ka daalina wax kale uma baahnid aniga kownkan iska lehe aniga xuskayguun ha ka daalina walidalik buu ilaahay xuskiisa kamuu daalina markay ku adkaatay wuxuu lahaa kalaa ina macya rabbii sayahdiin ilaahay baa aniga macayga way xanuuninaya ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu ku leeyahy fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul siday ululcasmiga rusushu u sabreen ugu sabir walaa tastacjil lahum baa ilaahay yidhi qoladan waxba cadaabkooda ha degdegsanin baa ilahay yidhi cadaabka goortaan keenaya iyo goortaan aargoosanaya waxaa waa shaqadayda baa ilahay leeyahy waxba adigu ha ku degdegin walaa tastacjil lahum adiga waxaa laga yaabaa inaad adigu islaaday mu'minkii xaggaa lagu rifo xaggaa laguma kuwan dhulka lala gooyo ilaahay taa anigay shaqadayda tahay baa ilahay leeyahy walaa tastacjil lahum ha ku degdegina baa la yidhi subxaana wa tacaala laakiin ilaahay muxuu leeyahy walaa tastacjil lahum kaannahum yowma yarawna maa yuucaduuna lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar maalinta ay arki doonaan baa ilaahay yidhi wixii aan u yaboohay dunida tan tirada badnaydba waxay la noqon doontaaba inaanay saacad maalin ka mida inaanay soo joogin waxba hala degdegina baa ilahay yidhi maalinta ay noqoto inaan wax ciqaabo waxay noqonaysaa baa ilaahay leeyay lam yalbathuu ilaa saacata min nahaar dabeetana ilaahay wuxuu leeyay balaaq fahal yuhlaku ila alqawmu alfaasiquun ay hada balaaq balaagun linnaas waa gaadhsiin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala taas waxaa alle subxaana wa tacaala ina baraya marka kan sabirka qofka muslimkaa waxa hortiisa taagani inuu yahay inuu sabro imtixaanka inuu ku sabro oo u sabro laakiin sabirka macnihiisu muxuu yahay kow inaanad degdegin midhaanaad goosan karayn inaad ku degdegin isticjaal inaanad samaynin khuliqa alinsaanu min cajal insaanku marka hore wa kaana alinsaanu cajuula abuur ahaan buu mid degdegta jecel yahay bal tuxibuuna alcaajila
ilahay wuxuu tilmaamayaa insaanku inuu degdegta sidiisaba iska jeceliyey waxa degdegtaana uu jeceliyey laakiin ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala degdegtiina alle lama degdego ilaahay arrimihiisu maqaadiir bay ku socdaan walidaalika adigu ha degdegin baa la leeyahy sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiiskii saxiixa ku yaalay bukhaari uu soo saaray khabaab ibnu larat waa saxaabi qabiilkii reer banu tamiima ninka kan waa dadkii la qabsaday ee dabeetana la addoonsaday nin carbeed oo reer banu tamiima buu ahaa laakiin gacan colaadihii inta la qabtay la addoonsaday islaan la odhan jiray umu anmaar ayaa akhiiran laga iibiyey islaantiina farsamada tumaalnimada la yidhaahda bay bartay dabeetana way ku xoogsatay markaa meel baa loo furay dukaan tumaaleed oo farsamo yaqaana fortunkaasuu haystay markaasi iyo wixii ka soo galana qoladan baa dee qaadan jirtay wuxuu ka mid ahaa muslimiintii hore ee islaamtay ee dhibta badani qabsatay wuxuu leeyahy maalintii dambe nebiga u nimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo burde uu leeyahay isagoo mutawasid ku ah oo kacbada hadhkeeda joogaan u imi waxaan ku nidhi buu yidhi alaa tastansir lana alaa tadcu lana ilaahay rasuulkiisiyo maad ilaahay de haddaba noo baridid maad ilaahay guul noo weydiisid baan ku nidhi buu yidhi wuxuu ku yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qad kaana man qablakum yu'khad war kuwii idinka horreeyey buu nebigu yidhi qaar ka mid a ninka inta lasoo qabto ayaa god loo qodi jiray dabeetana inta godka lagu rido oo lagu aaso xaggiisa hoose si aanu u dhaqdhaqaaqin ayaa miishaar madaxa laga saari jiray dabeetana miishaarta inta lagu toorjargareeyo ayaa laba loo kala jari jiray buu nebigu ku yidhi waxaa lasoo qaadi jiray buu nebigu leeyahay amshaat min xadiid gafeedho bir ah dabeetana lafta iyo diirka ayaa lagu saari jiray toorjarku maaha wax hadda bilaabmay taariikhda bashariyadu mar kastoo ay kibirto noocan way lahayd nebigu wuxuu ka warramayaa markaa dad la toorjargaraynayo oo lagu toorjargaraynayo diintiina ka taga oo dabeetana diidan inay ka tagaan ayuu saxaabigan uga sheekaynaya wuxuu nebigu ku yidhi markaa maa yasuddu dalika can diini waxaasoo toorjar lagu hayo ee gafeedhaha birtee lagu rifayo miishaartaa lagu kala jeexayo waxaa mashaakil haystaa buu nebigu yidhi may ahayn ku diintiisa ka celinaya dabeetana nebigu intuu dhaartay buu wuxuu yidhi wallaahi layutimana allahu tacaala hada alamr xataa yasiira alraakibu min sancaa ilaa xadramowt falaa yakhaafu ila allah wadi'ba calaa hanami walaakinakum tastacjiluun nebigu wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartee alle subxaana wa tacaala diinta tan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo yacni nebigu wuu bushaaraynayay saxaabiga kan haddaad dib ugu noqotona wakhtiyaduu nebigu bushaarayn jiray inta ugu badan leh waxay ahaan jireen wakhtiyada sacabka ah axzaab oo kale markii dhaxantu jirtay ee gaaladii oo dhammaysa soo urursatay ee godkii yaraa ee laqodayay dhagaxa loo taag waayey uu nebigu ku dhacayay ayuu lahaa mafaatiixdii shaam iyo mafaatiixdii furus kuwaasaa laysiiyey wakhtiyaduu nebigu uu bushaarayn jiray markii godka uu ku jiray ee isaga iyo abibakar godka ay ku jireen ee la eryayey la firdhiyey ee la raadinayay ee abibakar ilaah hadday gumadooda eegaan wayna arkayaan ayuu nebigu wuxuu lahaa maxaad u malaynaysaa laba ilaahay saddex ku yahay wakhtiyaduu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadka ducaadda iyo dadka diinta garanaya waxaa loo baahay inay dadka qalbigooda dejiyaan oo u sheegaan wixii bashaa'ir nebiga ka soo aroortay ee qur-aanka ka soo arooray wakhtiyaday dadku mixanka ku jiraan idan iyadoo mixnadu dhacayso ayuu nebigu saxaabiga kan laba shay buu wada tilmaamay dhan wuxuu uga tilmaamay waxaa loo baahan yahay inuu yahay qofka mu'minkaa tacdiibku inaanu diintiisa ka celinin dhan kale wuxuu uga tilmaamay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh diintan inuu ilaahay dhammaystiri doono mar saddexaad bu haddana nebigu wuxuu u tilmaamay saxaabiga kan walaakinakum tastacjiluun waxaad tihiin buu nebigu leeyahy kuwa degdegaya ee degdega iska daaya degdegu waxba ma kordhiyo waxba ma taro wuxuu taraa degdegu wixii aad haysatay inuu kaa kala daadiyo waxaan la gaadhin haddaad raadacayso adaa ku xiiqaya saa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu saxaabigan u tilmaamayaa isticjaalka iska reeb oo sabra walidaalik buu nebigu saxaabadii caynkan ku lahaa iyadoo toorjarkan iyo dhibtani haysato yani saxaabada qaarkood markii dhibtu ka tiro badatay kelimatulkufrigii waa iskaga dhawaaqeen waayo ilaahay baa u ogolaaday sida camaar ibnu yaasiri
waana kii nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamay abshiruu ala yaasira faina mawcidakum aljanna yacni sabran ala yaasir waxay yidhahdaan ma asaxin ama abshiruu ala yaasir faina mawcidakum aljanna bacd alculamaa baa wax ka ururiyo la yidhaahdaa mustafa alcadawi sheekh mustafa alcadawi iyo rag lamidi waxay leeyihiin alxasan ligayrihi waa gaadhi karaa haddii sanadadiisa la ururiyo yacni waxay ahaayeen wakhtigu nebigu uu bushaaraynayay wakhti la dhibayay bale bilaal haddaa iminka aragteen suwar qof muslim oo intay gabadhi sida eyga bahal xadhig yar sudhatay ay jiidaysa haddaad aragtay bilaal oo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi kuwa uu jeclaayay ugu horrumeeyey caynkaasi ahaa ayaa inta la tumo marka tumista laga badiyo carruurtaa hoggaan loogu xidhi jiro o la odhan jiray mari suuqa soo mari xadiiska sanadkiisa oo xasan intaa hoggaan loo sudho ayaa la odhan jiray meelaha kacbada iyo agagaarkeeda soo marmariya si loo gubo markaas waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu sabirno nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacni waa soo koobaya markii ay dhacday sulxu xudaybiya heshiiskii ay muslimiintu la gelayeen gaalada iyadoo heshiiskii la qorayo oo aan weli la dhammaynin oo nimanka gaaleed ay is adadkaynayaan oo ninkii gaalada markaa u hadlayay uu leeyahay masax waxaanaad qortay bismi illaahi araxmaan raxiim qor buu nebigu yidhi wuxuu yidhi u kaadi raxmaanuraxiimka inaad sheegaysa annagu garan mayne bismika allaahuma noogu qor magaca allaan ku bilaaba nuun ku qor laakiin raxmaanuraxiimkaas waxaynu isku waafaqsannahay maaha kada waa brotocoolkii wax loo qorayaa la isku hayaa ka daaya buu nebigu yidhi u qoro kooda waxaad qortaa buu yidhi maxamed oo ilaahay rasuulkiisiiya sug buu yidhi rasuulnimo haddaan kuu garanayno ismaynan dilleene magacaaga iyo kii aabbahaa qora buu yidhi maxamed ibnu cabdillaahi ku qoro haadaa maa saalaxa caleyhi moxamed ibnu cabdillaahi saa ku qoro kama saxoo ku qora buu yidhi oo cali baa xanaaqo yidhi wallahi inaanan masaxaynin ee tus buu nebigu yidhi oo isagaa masaxay heshiiskii iyadoo la yeedhinayo heshiiska la yeedhinayo markaa waxaa ka mid ah wixii ka soo gala gaalada ee muslimiin ee soo cararee muslimka u yimaada in dib loo soo celiyo lagu celiyo gaaladii raadcaynaysay wixii laakiin muslim ee soo baxsaday xagga gaalada yimaadee soo ridoobay inaan la soo celin bunuudda ka mid ahayd la qorayay iyadoo bunuuddaa la wado aan weli la qorin ayaa waxaa soo galay saxaabi raran oo xabsi ka soo baxay oo silsilada ku xidhan yiin oo ismaqlay muslimiintii baa maka u soo dhowaatay oo isla mar uun haddaad meesha ka baxdo abujandal baa soo galay abujandal waa axad asaxaaba maka ku xidhnaa oo silsiladiisii watoo soo baxsaday aabihiina waa ka nebiga heshiiska la gelaya suhayl ibnu camar saxaabigii la odhan jiray oo markaa gaala waa ninkan heshiiskaba qoraya ee nebiga heshiiska la gelaya dabeetana wuxuu yidhi maxamedow kanbaa ugu horreeya heshiis waxaa kugula gelaya waar weli maynan qorin buu nebigu yidhi heshiiskii wallaahi haddaanad aqbalin buu yidhi inaan weligaba heshiis kula gelin markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ii sii daa markaasuu yidhi kuu sii dayn maayo balaa buu nebigu ku celay mee waad ii sii daynaysaa kan anjisu ley ii sii daa kuu sii dayn maayuu istaagay makras mid la yidhahdo kaloo gaalada ka tirsano meesha taagnaa ay yidhi war waa kuu sii daynay suhayl waa xanaaqay uma sii daynayna buu yidhi waa u diiday markuu arkay in la ishaystaa buu saxaabigiina qayliyey wuxuu leeyahay yaa muslimiin maanigoo gaalo ka imi oo intaas soo cararayay oo silsiladahan soo jabsaday kuwan tahay ayaa igu celinaysaan haddana gaaladii war ma waxaad rabtaan in diintayda layga fidmeeyaabuu isna halka la taagan yahay saxaabadii waaba miyar doorsoomeen waa maalintuu cumar xanaaqii intuu wareeray uu lahaa intuu nebiga u yimi buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii miyaan anagu mu'miniin ahay miyaanad adigu ilaahay rasuulkiisii ahayn buu ku yidhi markaasuu nebigu yidhi maya waa ahay annagu miyaanan mu'miniintii ahayn maya waa tii kuwani miyaanay gaaladii ahayn maya waayi su-aala aan la filayn inuu cumar nabi maxamed hadda weydiiyuu weydiiyey kadibna wuxuu yihi falima nucطa daniyata fii diinina dullinimada tan maxaynu u aqbalaynaa nebigu wuxuu ku yidhi sabir cumar waaba joogi kari waayo waa dhaqaaqay abibakar buu haddana u tegay inta in leeg buu weydiinaya miyaanu nebi maxamed ilaahay rasuulkiisi ahay maa caynka ahay ilzam hirza buu ku yidhi abibakarna laazim nebi maxamed warkiisa isagunbaa lagu liibaanayaay cadhadii buu ishayn kari waayo o wiilkii halka ka qaylinaya silsilada ku xidhnayd buu isa soo dultaagay isagoo leh gaaladu waa kilaab aan naf lahayne seeftana kusoo dhawaynayo isla wiilkana intuu safta la boodo madaxa ka jaro odayga kan laakiin wiilku aabbihiina waa la yaro laxa jeclaaba inuu madaxa ka gooyo waa aabbihii da ninkan meesha taagan cumar way ka xumaatay marka
arrinkii wuu ka xumaaday wiilkiina sidan buu leeyahy salaaddii baa la qiimaya halkaa ku joojina. Salaamu calaykum.